aad sharaf weyn iigu ah aad maanta ugu faraxsanahay wax badanna ka bedelaysa hay-addan markaan kasoo bilowno 2013 qaabka aan ku aasaasnay oo ahaa markaas dhiig joojin waxa ugu muhiimsan ay ahayd in balxogaha iyo la socodka iyo sida ay tadawuraadka ay sameynaysay iyo maanta meesha ay marayso oo maanta aan isleeyahay marka laga soo tago dhismo iyo tiknoolajiyad iyo wax walba in geeska Afrika maanta cid wax laga weydiinayo inay inta badan xogta iyada ay tahay oon hubo dowladda Soomaaliya inay iyadu kaga horeyso saraakiisha laftirkooda dhalinyaro ha u badnaato odayaal ha ku jireen laakiin aad baan uga mahadcelinayaa sababtoo waxaan garanayaa marxaladaha ay soo mareen iyo sideedabada guud ahaan iyadoo ciidanka Jubbaland uu mudan yahay mahadcelin ay mudan yihiin wax dhaqan ka duwan dhaqanka ciidamada kale jira oo dhan oo ama dishibliinka ha noqoto ama sabirka ha noqoto ama duruufta ay u dulqaadanayaan ha noqoto ay kaga bedelan yihiin haddana kama soo hara ciidanku mar walba hoggaankiisa sida uu yahay isla waan dhisaynaa hay-adda kama hakranayno iyadii ciidanka kaleba wax allaaliya wixii la qaban karo oo dhan baa la qabanaynaa waxaana rajaynaynaa inay tusaale u noqoto Soomaaliya marka taas waxay la tahay waa inaad qaadataan oo ogaataan aad baan idinka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad shaqo wanaagsan baan idiin rajaynayaa